murtida maanta. dadkayguna dunya la'aan buu u lumay, dunyadayduna dad la'aan bay u luntay. hawraartan murtideenna maantaahi waa erayo uu ku cataabay nin abwaanahoo Soomaaliyihi, waxa ayna ku soo duxday maskaxdiisa markii uu arkay dadkiisii oo dhaqasho waayay oo xoolahuna noqday, wax la'aanna la saxariirsan, wax la'aantaasna aan alle ku jirabin ee ayagu isku jirabay. haddana uu arkay xoolihiisii oo ciidan la'aan u lumahaya oo la baaba'ahaya. waxa ayna na tusaysaa murtidu haddii aan dhaqaalaha dalku dad helinin inuusan dhismaynin, dadkuna hadduusan dhaqaale helin inuusan dheefsanaynin, labaduba inay isku xidhan yihiin noloshoodu. waxaana markaas muuqanaysa sida la doonahayo in dhaqaalahana hore loogu dhigo, dadkuna dib ugu noolaado. miyiga waxaa laga helaa oo jooga oo lagu dhaqdaa xoolo nugul iyo reer cadba leh. xoolahaasna waxa weeyaan hodantinimada dhabta ah, waxaana ku hodma ninka faraha ku haya iyo dadka kaleeto oo dhan. waxa ayna u baahan yihiin xanaano iyo dadaal yaab leh, ilaalin, aroorin, rarid iyo waxyaalo la wada mid ah oo dhibaato ahoo laga marahayo marka xoolaha la xanaanaynayo. kaa xoolaha dhaqahaya ama dadka reer miyigaahiba haddii qof ka midii uu is yidhaahdo dadka magaalada jooga oo haraca iska haysta oo nasiinada wax ku cuna ma aday kaa fiican yihiin, bal adiguna meesha tag oo arag oo waxay ku nool yihiin kula noolow. xoolihii markaa waxtarkoodii iyo dhaqaalahoodii waa isdhimahaya, ciidankoodiina waa yaraanahaya. haddiise dadka miyiga degani ay xoolahooda ogaadaan inay yihiin hodantinimada lagama maarmaanka ee dalka ah, oo ay dhaqaan oo ay ka fakaraan sidii ay uga shaqayn lahaayeen badnaantooda la badiyo iyo caafimaad sidii loogu helo iyo daaq wanaagsan, waxa ay markaa gudanahayaan waajib weyn oo ku saabsan dhaqaalaha dalka horudhigiisa. dadka beeraha ka shaqeeya oo iskood u qotaa waxa weeye kaalmo weyn oo ay u geysanahayaan dalka oo dhan naftooda ka sokow. haddii ayaguna ay is yidhaahdaan waxa aad haysaan waa dhib ee shaqadatan mid ka hawl yar raadso, waxaa halkaa isdhimahaya dhaqaalihii dalka oo inuu kordho loo malaynahayay. haddiise ay si wanaagsan uga shaqeeyaan howlahooda oo ogaadaan dalka meesha ay ka hayaan inay tahay meel weyn oo dhaqaalihii ka dhismahayo, taasuna waxa ay noqonaysaa kaalmo weyn oo xagga dhaqaaluhu uu ku gaarahayo meesha la doonahayo. qof kasta oo farsamo ka haya dalka, hawsha uu asagu uu hayo haddii uu hagaajiyo oo mar walba ku dadaalo tii uu awal qaban jiray mid ka fiican oo dhaanta inuu soo saaro, isla mar ahaantaas uu xusuusto inay tahay dalka dhismihiisa waxa uu hayaa iyo waajib weyn oo uu ka soo baxahayee naftiisuna ka sugaysay, ummadiisuna ka sugaysay, waxa uu markaa noqonahayaa qof ka soo baxay halkii laga filahayay oo dhaqaalihii dalka wax weyn ka qabtay. murtideenna maantuna waxa ayna tusaalaynaysaa qof kastaaba meesha laga sugahayo ee uu kaga habboon yahay dalka dhaqaalihiisa horudhigiisa inuu wax weyn ka qabtaa, daacadnimona uga shaqeeya.